halkan maanta istiidiyooga waxaa marti weyn oo fanaanad caan ku ah dalka Soomaaliya oo magaceega aad ugu wada taqaanaan Mandeeq oo ugu ay wal baxday afanka hase yeeshee magaca ayaa bixin iyo hooyada u bixiyeen oo ah Faadmo Cabdilaahi Kaahin bal qadar ogeysi bal magacan Mandeeq sida uu kugu baxay dadweynaha reer Djibouti kaltuwad mahadsan tahay su'aasha aad weydiisayna horaa loogu baahnaa in la weydiiyo laakiin haddii ilaahay nasiib baad u yeelatay inaad maanta aad ugu weydiiso aadna waad u mahadsan tahay aniga hooyadii waxay ii bixisay yaabahay Faadmo laakiin magacan dadweynaha Soomaaliyeed ayaa fanka iigu bixiyey dhinaca fanaaniinta Maxamed Axmed Kuluc ayaana ii bixiyey magacan isagoo jeclaystay sidii aan fanka ku soo galay iyo sidii aan markaa ku imid marka Faadmo oo magacan Mandeeq ma waxa uu kugu baxay halkii ay ummadda Soomaaliyeed rabtay ayaad ka taabatay xagga heesaha haa kulkaan muu jirin dee wax kale oo la taabtaaye jacaylka dhalinyarada aad u jacayl badnayd anna kuwaasaan ka mid ahaa waqtigeed Faadmo fanka ku biirtay 61 waqtiga dhacdadu intee la ekayd ama inta baad ahayd waan yara markaa ilaa 16 ilaa 17 waan ahaa Faadmo jirkaaga oo aad isku bedelin ilaa waqtigan haddii aad ahayd fanaanad Soomaaliya u heesi jirtay bal heesahaaga waxay u fara badan yihiin kuwa jacaylka maxaa kugu ajburay dhinaca jacaylka inaad leexatay dhinaca jacaylka waxay igu kalifay aniga caadifiyada waxa isjecel waan jeclahay anigu waan jacayl badnahay labada qof la yiraahdo way caashaqsan ama hays qabaan ama si kala badahay si jeclaadaan waan jecelahay in dadku isoo jeclaadaan waan jeclahay inay adduunyada dhan isoo caashaqdo isoo jeclaato waan jeclahay waayo anigu baa ismoodo oo kale dadkoo dhan way isnacab ma jecli Faadmo hadda bal jacaylka adduunyada inta aad soo noolayd maxaa kugu farxad badneed ayaantii jacaylka la kulantay hadda saa u jacayl badan tahay ayaantii aan u jacaylka badnaa waxay ahayd ayaantii aan fanka galay ee aan ku soo dhawaaday fanka inaan ka heeso oon anigu isdhegaysto oon anigu isdaawado oon anigu ismaqlo ayaa farxad weyn ahayd waayo kumaan soo gelin lacag iyo shaqo doono iyo ka shaqayso laakiin sidii quruxda badnayd ee ugu soo dhawaaday ee aan lacag iyo waxa ku soo gelinay jacayl fan soo jiitay ii geeyay ayay iigu farxad badnayd jacaylkaas jacayl iigu weynaa waa tahay Faadmo heesaha aad ku qaadid fanaaniinta kale kuma qaadi karaan ama xariga halkaad heesaha ka qaadid laguma gaarsiin karo ee arintaasi bal ka waran waxa kalsoon aad bad mahadsantahay kalsoon waxa weeyaan codkaygu bedelaad ma leh waanan isbedelin waxaan ahayn dadkan maaragtay ama 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 ku dardara sidii ilaa habeenkii aan fanka soo galay ayaan wali ku taagnahay maneehi dadka isbedela waxaan u maleynayaa in xarigii la garan laayeen in badan kala qaada way jirtaay xarigayga garan laayeen yada mooyii inay xaq dhowriyaan kala garan may laakiin aad la ilma qaado dadka kala heesaa way kala qaadaan Faadmo bal dareenka jacaylka adiga kugu weynaaba ayaa lagu gaarsiin kari laayahan malayn umale kaltood taasina way dhici kartaa waa tahay Mandeeqay ma filaysaa in mustaqbalka aad halka ka sii wadid fanka aad ku jirtid anigu ilaa aan xabaasha gelayo fanka meel kale oo u dhaaf kariya ma jiro inta aan noolahay waayo shaqo kalaabana noqonintee jacayl baa igeliyay jacaylkiina wali waan kaga baxaya naftahay iga baxdo waan masantahay Faadmo heesaha jacaylka kugu aqoonay bal dhinaca halganka Soomaaliyeed maxaad kaga beertay ama heesaha ku qaaday maxay kamid ahaa waxa weeyaan heeso badan oo calankaaban qaaday anigu dhulka iyo calanka iyo waxaas man ku qaadi jiray miyay qoloy maan qaadin heesahan maaragtay wabaabada ee kale laakiin calanka ammaantiisa iyo dhulka wadanka intaas uma ammaan jiray oo la ii dhiibi jiray maalfiintu ii dhiibi jireen waa maalintaynu calanka taagnay waa maalintaynu sheeyad tuuray dad badan oo caynkaas oo aan ku qaadi baa jirta
helayo gobonnimo hantina aan wada hananne oo imikadan xitaa aan hayo oo aan taqaanay hayna laakiin si kala ah waan hayaa fanaanimadaadu uma dalka Soomaaliya oo kaliya ku kooban dibadaha ayaad u baxday maya dalka Soomaaliya kaliya kuma koobnayna maya wadanka Soomaaliya oo dhan horta waan maray jamhuuriyadda Djibouti caawa jooga xitaa caawadan aan dhex jooga ugu dambayso laakiin adduunyada waxaan maleynayaa ama dawladaha nageysa ama sideeda baan ku tagnay inaan in badan maray oon ka heesay waxaase mahad weyn caawaya adigoo jamhuuriyadda Djibouti dhexdeedii ugu wareysanaya dalkayagii labaad walaalahayagii labaad eenu isu caafimaadka qabnay aanu ka filaynay sidaa ay maanta noo qabteen annagoo qaxoonti gallay annaga oo aad dalkayga u baaba'ay sida wanaagsanay noo soo dhoweeyeen sida wanaagsanay noola halgameen sida wanaagsanay dadkayagii u xaq dhowreen iyaga oo naftayaadii labaada iyo naftayaadii iyo jiirkayagiiba ah ayaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa iyagana mahaddii labaad aan siinayno Faaduma haddaba ma ku tala jirtaa heesaha ku saabsan xaaladda imika taagan dalka Soomaaliya inaad ku qaadid haddii ay aan ka gaarsiin karo waxaan jeclahay inaan munaasabadda Djibouti ka qayb galo oo halkaas ku noqaysid aan halkaas ka qaado hees oo munaasabadda ka qaado waan jeclahay maandeeq heesa fara badan ayaad ku qaadaa bal heeska aad ugu jeceshahay bal maanta noo sheeg halkaan kula dhegeysanay kaltuun heeso badan oo qaada way jiraan waxaanay u badan yihiin aniga heesaygu caashaq ma halgankaad u baahantahay mise jacaylka bal labadaba kii aad ka jeclayd anigu dookhaagaan eegaynaa kolley halgankii daylawa calankiina waynu haysanaa halgankeenina ku guulaysanay laakiin heesaha caashaqa heesta la yidhaahdo helinka Abdullaahi Tiiriye suuran leeyahay ayaa nimka aad maqli kartaa waa tahay bal ha wada dhegaysano heeskii dookhi maandeeq oo ah fanaanadii caanka ahayd ee dalka Soomaaliya bal iyadana dookhiga han la ciyaarno oo han la socono heeskan ay noo dooratay wad mahadsantahay